السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دو عشر كني ما أنتم هنقول قاعدنا introduction to CSS بنقول قاعدنا وهم حي CSS كم بالغرض CSS كحوي هو styling layout وهو حمقال كمقاب وصل به web pages كا website كا هروح نصل اللغة HTML هاي hypertext markup language واللغة اسمها مركات نحوي style sheet ويا واللغة اللي راهو cascading style sheet cascading style sheet واللغة CSS كا مع pages كا وصل ما يصير HTML ka dhisan u sameynaysa qaabka ama muuqaal marka single page iyo multiple page bay labadaba way qaadataa single page waxa weeye in hal page lagu maamulo multiple page na waxa weeye in page badan lagu maamulo marka saddex qaybood bay noqotaa waxa la inline waxa lagu maamulo inuu hal page noqdo internal kuma sidoo kale waa hal page baa lagu maamulaa marka inline waxa weeye inuu tagaga open tag ama insert tag waa inuu ku fuulo uu haga soo dhex baxo internal kuna waxa weeyaan inuu ku dhex fuulo maxaa qaybta headka inaad style ku dhex samaysatid qaybta internal kuna waxa weeyaan external kuna waxa weeyaan in dibadda laga maamulo page labaad lagu maamulo marka luqadda waxa weeyaan iyadoo la isticmaalayo linkiga iyadoo la isticmaalayo marka tusaale haddaad doonaysid inaad isticmaashid maxaa la luqadaada HTML waa skeletonka ama qaab dhismeedkii CSS kuna waxa weeyaan qaybtii skinkii ama jidhkii marka HTML iyo CSS la suuqay kaas ayaa noqda website qurux badan oo la daawan karo ama la isticmaali karo haddaynu nimaadno qaybtan maanta waxaan sameynaynaa document-keena waa kan oo uu diyaarsan yahay bal waxaan furanaynaa ugu horreyn file baan furanaynaa filekaasna waxaan ka dhiganaynaa luqadda waxaan ka dhiganaa tusaale casharka koobaad waxaan ku furaynaa casharka ama cashar 1 aynu sameynaynaa .html oo html ah waana html5 saas ayana lagu furay hadaan html5 doorano dhammaan document-keena saas ayuu diyaar inoo yahay haddii aynu nimaadno allah mustacaan qaybtan aynu mar kale ku celino oo aynu raahno my style waxay style-kii sameeyayna isticmaalno my style.css isticmaalna css-kiina asaguna file saas ayuu diyaar inoo yahay marka waxaan doonaynaa qaybtan css intaan nimaadno in halkan sare aynu nimaadno aynu soo darsano linkiga isugu xidhaya waa kan linkigan ayaa soo xidhaya linkiga baan halkan soo gelinaa marka linkiga aynu isticmaalno waa linka loogu talagalay inuu ku sameeyo kugu sameeyo maxaa la yiraahdaa externalka inuu kugu sameeyo halkaas ayaad soo qaadanaysaa marka key ayaan bartaan imanaya halkaas ayaan keenaya markaas keyaan halka dhigay ugu horreyn html-ka ayaad dhex keenaysaa html-ka marka dhex keentid waa linkigan marka page-kaaga css-ka magaciisa ayaad halka ku qoraysaa my style.css baan ku qortay saas marka uu samaysan yahay CSS-kayga marka halkan ayuu diyaar u yahay hadamka aan save sameeyo aan save gareeyo xaggan CSS-kii diyaar ayaa uu yahay hadaan kasan sameeyo aan halka daadan sar dhex yimaado oo aan dadna padding ku qoro yani waa la sameeyaa padding hadaan ilaahdo padding .0 mugacaadi ayaan isticmaali karaa si aan bal u aragno hadaan halka imka tusaale ku sameeyo aan body barta ka soo furo body barta ka soo furo inaad body-ga soo furo okay body-ga inaad soo furo madana idhaahdo background-ka xiga bedel ama background color-ka bedel dabadna background color-ka orange iga dhig dabadna idhaahdo save oo dabadna html ka dhex tago oo idhaahdo left server-ka soo furo background-ka waa la bedelay waayahay dib ugu yar noqdo waxaan isticmaalay ama linkigani waxaan ku furay linkiga waxa iskaga furnaadaba laakiin waxaan doonayaa qaybtan CSS-ka inaan waxaan igu qoran iska saaro buri waad aragtaan CSS-ka imika wax code igu qoran ma jirto macal barigan ka saaro macal kanan ka saaro saas imika waa maran yahay marka page-kayga san buu banaaniyay oo caadi yahay bal hadda baadan doonayna in isticmaalo inline sida loo isticmaalo hore ayaan soo baranay waxaad imanay kartaa buriga aad imanaysaa halka buriga marka timaadid waxaad imanaysaa dadna style baad furaysaa dabadna waxaad saa style-ka hadana background color dabadna waxaad salad oranaya background color-kayga waxa noqdaa blue dabadna hadda save gareeyay marka aan eego waa blue way haddaan doonayna isticmaalo internal haddaan doonayna isticmaalo waa kan gudaha laftigiisa isaga waxaad ka siin kartaa qaybtan baad uga samayn kartaa styling-ka adoo tusaale oranaya halka heerka timaadid halka inta timaadid heerkaaga furan heerkaaga xiran dhexdiisa ayaa halka style ka dhex samaysanaysa imika qaybtan haddaan iska wada kad gareyno aynu iska wada move gareyno aynu ku sameynaa cut ku sameyno halkaas aad ka furan waxa la yiraahdaa style
adna style kaaga dhexdiisa aad iman ku furayso dabada waxaad ka soo furayso tusaale body oo kale body marka aad soo furtid waa inaad tiraahdo dabada waa tiraahdo background color kan bedelaya dabada background color ka noqonaya blue marka colorka markaad sameeysid aad colorka u sameeysanaysid tusaale waa inaad isticmaashid dhibcaha waa inaad isticmaashid hadii kale kuma qaadanayo imika haddaan blue yiraahdo blue gisna sameeyo waa inaan simkaabsa u kaliyo kadib markaas colorkii la sameyn doonaa waka blue balaga dhig marka haddan doonaydo tusaale inaan ka noqdo waxaan iska masaxo aan ilaa iska masaxo styling oo dhan kadib inaan waxayga igu jiraan ku sameeyo qaybtan kale waa qaybtan oo waxaan soo dhiganay linkiga baan soo dhiganay meesha linkiga baan soo dhex dhignay kadibna halkaas ay imanayna marka ugu horreyn xidig ba laga bilaabo si document-kaaga dhan wuxuu ka bedeshay marka waxaan odhanayaa wax baadhina yaan yeelanin oo zero noqdo baadhig yani waxa weeye line-ka intuu kasoo durugsan yahay gidaarkan waa qoraalkaaga waxa gidaarkan iyo xabiib kasoo gayno zero aan kasoo jarno document-ka markaas hore margin ayaanu yeelanin wax margin yaanu yeelo qoraalku yani qoraalku yaan hoos usoo degin wax hoos soo degtay dhinacnaba yaanu kusoo durkin imika halkaa markaan imaado haddana ka tusaale body-ga haddana aan ka furo oo body-ga bartaa u yeedhaan body-ga halkaa iga yeedh oo dabeetna aan idhahdo background color-ka aan ka bedelno dabeetna aynu soo tusaale aynu ka dhigno colorkaas hot pink aan ka dhigno hot pink imika tusaale haddaynu aragno colorka waa kana wala bedel markaas CSS-ku noocaas u noqon doonaa halkan dhammaan waxaan u yeeri doonaa waxa la wixii haddaynu imika ciwaanada wax ciwaan noogu yeelan haddaynu halkan doonayno imika tusaale hadhow h1 ka furo sorry haddaan doonayno halkaa h1 ka furo h2 baan ka furo daadaan idhaahdo welcome to CSS hadaan imika halkaa ka furo oo dabeetna aan save gareeyo waxaad marka doonaan halkaa ku dhex qoran yahay welcome to CSS in halkaa ku qoran tahay marka aan doonayo bal inaan ugu dhex yeedho ciwaanka ka hor waxaan odhanayaa h2-gan aan samaystay maxaa la waxaad sameysaa font family horta waxaad ka dhigtaa nooca ka dhig waayahay waxa kale doonaya inaan idhaahdo font size ka bedelaya waxaan ka dhigayaa tusaale 78 pixel baan ka dhigayaa Somalit okay waa mun isticmaalnay marka waxaanu isticmaalaynaa inuu hadhow aynu styling ku sameynayno haddaan doonayno tusaale inaan sameeyo halka hadanka document-ka body-ga dhex imaado oo body-ga igu dhex jiro maxaa tusaale igu dhex jiro paragraph oo paragraph igu jiro paragraph igu qoran yahay paragraph marka uu san igu samaysan yahay tusaale qoraal say igu qoran yahay qoraal paragraph say igu samaysan yahay marka haddaan doonayo tusaale qoraal halkan paragraph bay safay sama qoraal bay igu qoran qoraalkayga haddaan doonayo inaan colorkiisa aan bedelo halkaas baan imanaya CSS-ka dadna waxaan odhanayaa meesha waxay igu qoran hal paragraph-ka dadna waxaan soo haran qaato la colorkiisa inuu noqdo tusaale la mustacaan white ilaa markaas sida dhacda maxaad aragtay waa la bedelay marka hal meel qora ka bedeli kartid waxaad doontaa ka bedeli kartaa font size-kiisa bedel font size-kiisa waxaad ka dhigtaa tusaale waxaad ka dhigtaa 18 pixel waayahay waxaad bedeshaa la mustacaan waxaad sameysaa kale text alignment u samee waxaad ka dhigaysaa suuqaysa center oo waxaad sameyn kartaa la mustacaan waxaad sameyn text transform baad sameyn kartaa text transform baad sameyn kartaa text transform kisna wuxuu noqonayaa badan uppercase wada xuruf waaweyn ha noqdo waxaad sameyn kartaa text la mustacaan ama font labadaba la isticmaala font weight ha noqdo bold imika waxaa dadna paragraph-keeni lagu sameeyay paragraph-keeni ugu horreyn center bala kana dhexdu joogaa maxaa la dhahay uppercase ku dhamaantiisa wada noqday oo xuruftii capital baa laga wada dhigay Allahu musta'an waxa laga dhigay bold ayaa laga dhigay marka saas aynu shaqada ugu sameynayna marka insha Allah markaan qaybta imka CSS-ka aan san u dhameynana waxaan arki doonaa CSS-ka markaan san u dhameynana halkan hadaynu ka galno website-keena soo galno waxaan arki doonaa website noocan oo kala
ayaynu aakhirka samayn doonaa inuu gaari doonaa website-ka maxaan ku sameynay sidoo kale baan sameeyay halka waxaad aragtaan inuu leeyahay sorry inuu halkan leeyahay waad aragtaan maxay in halkan looga tala aragtaan halkan laba button sign up iyo yaala qoraal xaalkan la keenay oo isna loo keenay kadibna waa kan halkan uu leeyahay menus buu leeyahay xaggan hoose kale background yar buu leeyahay haddaan doonayaan halkan tusaale kusoo qoro HTML ahaan baan ku bedeli karaa CSS ahaan ku bedeli karaa CSS kiisana waa kan code-kan CSS kan isticmaal doonaa xidigta laga soo bilaabo padding-ka background image ku leeyahay menus kan waxaas oo CSS ah ayaan baran doonaa